ku bilaabay sidii aad warkaba ku maqlaysaan dhegaystayaal hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka dayrinaysa in cudurkan covid-19 laga yaabo in aanu sidaa dunida kaga dabargoyin xataa haddii la helo dawooyin lagula tacaala bay tidhi waxaanay sheegayaan saynisyahanno ka tirsan WHO-du in ay suurtagal tahay in ay cudurkaa qaadaan sanadkan intaaanu dhammaanin 250 milyan oo qof oo qaaradda afrika ku nool. ciise xaaji cabdille oo wararka aisha ku hayaya haatan stuudiyaha ila fadhiya oo warkaas iyo wixii kale faahfaahsan baynoo haya. ciise axmed, waa arin walaac badan abuureyso. hay-adda caafimaadka adduunka waxay sheegaysaa in ka badan rubac bilyan qof ay ku nool qaaradda afrika in cudurkan ay ugu dhiman karaan sanadkan oo keliya. hay-adduna waxay intaas ku dartay axmedow in ka badan 190,000 oo qof ay cudurkan ugu dhiman karaan qaaradda afrika. dabcan waxay eegeenaan u malayaa oo aysan soo bandhigin ilaa hadda in hay-adaha caafimaadka ee qaaradda afrika ka jira iyo tasiilaadka iyo sida ay caafimaadka dadka u gaarsiinayaan inay aada u liitaan ayay ka cabsi qabaan. waxayna sheegeen in 250 milyan oo qof ee qaaradda afrika ku nooleen cudurkan uga dhiman karaan sanadkan oo kaliya, waana tiro badan oo haatan laga cabsi qabo. hase haatee axmed, intaasi haddii aan uga baxna qaaradda afrika, wararka kale ee corona ku saabsan waxaa haatan goordhoweed lagu dhawaaqay tirada dadka ee cudurkan ugu dhimatay caalamka. maalmihii ugu dambeysay lama sheegin, waxaa la sheegaya in 200 oo kun markii ugu dambeysay. haatan 300 oo kun oo qof ayay axmedow lugta la gashay ayaa laleeyahay dadka tiradan ugu dhimatay, iyadoo tirada ugu badan ay ka imaadeen dalka maraykanka oo 80 iyo ilaa 7 kun aminkan maraykanka oo maraya. waxaa ku xiga dalka UK ee dalka ingiriiska, talyaaniga, faransiiska iyo Spain. arinta kale oo walaaca badan axmed waxay tahay in magaalada cadan ee dalka yemen laga soo sheegaya hay-adaha caafimaadka iyo hay-adda Save the Children ay sheegtay in ilaa